بسم الله والحمد لله وحده الذي لا إله إلا هو والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta ay taariikhdu tahay 2 bishii shanaad 2019 ama 27 bishii 8 1440 waxaa halkan idin kala hadlaya Cabdiraxmaan Maxamuud Jaamac indhacade oo ku jira jeelka dhexe magaalada Hargeysa isaga iyo Cabdiraxmaan Diyo sanadkii 11aad ee xarig dhaafa iyada oo la sii daayay dadkii la kiiska ahaa oo dhan hayb ahaana loola hadhay. marka hore waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland waxaana igu kalifay inaan kelmadan idhaahdo dulmiga iyo cadaalad darrada iyo cadaadiska nagu habsaday. Soomaaliduna waxay ku mahmahdaa waxaad qarsataaba way ku qarsataa. waxay kale tiraa Soomaalidu doqoni gunbaan ahay bay ka xishootaa. waxaana kelmadan u bixiyay tacaddi iyo tilmaan. haddaba Somaliland waa beelo isku tigay waxayna ka unkantay isku tanaasul iyo tawfiiq iyo wadaad. waxaase soo baxay argoosi qabiil haybsooc sadbursi iyo kala xigsi loomana sinna qaanuunka iyo power sharing ama saami qaybsiga. tusaale ahaan annagu waxaan ka koobnayn dhalinyaro fara badan oo ummadda Soomaaliyeed waxayna noqdeen dadka dawladaha kale loo dhiibay iyo dadka jeelasha buuxaaba cidda aan ahayn reer shaqsi oo inta la sii daayay dadkii nala midka ahaa reer shaqsi ayaa anaga magaca xirfadda oo dhan dusha naga saaray. marka laga reebo 15 dhalinyaro ah oo beesha Arab ah oo ku jira shaqada sunni oo dhawaan la soo xiray haddana isagiina sheekhiina wuxuu ku jiray tacaddi loo geystay ayuu isbitaalka ugu jira oo caloosha ayaa laga qalay iyadoo markii hore la sii daayay iyagana ay ka dabaciyay kaas oo sheekha cadaawad fara badan u hayay welina uu kala laaday. haddaba waxaan ku hadhnay aniga iyo Cabdiraxmaan Diyo oo kaliya wixii nala mid ahaa nala kiiska ahaa misku warankaan ee beesha wala wada sii daayay. annagana waxaa la yidhi waa reer awdal ahaan ayaa la noolahay. intaa 21 sano aan xiranahay wax xaq iyo wax xuquuq midna la nooma ogolaan mid wadaninimo iyo mid aadanimo toona. مثلا tusaale ahaan intaasi baan ugu dhaawac baan ahaa lamana wax dhakhtar la yima geeyo. waxaana dad Soomaalida oo caado ah hadii qofka bari la dilayo in caawa la sii dhiro. Somaliland waxay soo kordhisay in qofka silic ku disho dad kale oo reer Boorama halkan way ku dhintaan dhinaca kale haddaan ka hadlo power ama saami qaybsiga wad ka wada dheregsantiin. waxaase cadaalad darrada kordhiyay waa xisbiga kulmiye oo xidhay meelihii garsoorka iyo cadaaladda. tusaale ahaan wasiirka arrimaha gudaha jananka booliska jananka nabad sugidda gudoomiyaha maxkamadda sare heer ilaaliyaha guud iyo guddiga cadaaladda dhammaan hal reer ayay ka soo wada jeedaan waana isku hay. madaxweynuhuna wuxuu yahay mustambeed ayuu madaxweynuhuna yahay. waana meelaha laga maamulo ama laga soo agaasimo dambiyada lagana xiro lagana furo. run iyo been midka ay noqotana waxay intaasi soo gudbiyaan ayay ku qasban tahay dawladda inteeda kale inay qaataan. reerna cadaalad ma sino waxaana iska qanjiirsanayaan hoosta marka beelaha kale la xukumayo. wasiirka cadaaladuna wax alla waa qolof dhammaan waa laga wada hoos saaray. hal garsoore ma keeni karo mana eri karo wuxuu meesha u taagan yahay ma garatid. waxaana dadka laga keenaa gobolada Sool Sanaag iyo Awdal iyaga oo leh hay'ado garsoor oo isku filan. qaanuunka dalkuna wuxuu dhigayaa in qof walba meesha uu gafka ka galay ee lagu qabto lagu maxkamadeeyo. kulmiye intay soo qaadaan ayay halka ay ku xidhaan ku xukumaan ay ku maxkamadeeyaan. waxaana laga qariyaa in goob fagaara ah lagu xukumo qofkaasi. jeelka Hargeysa ayaa wuxuu noqday maxkamad waana mid aan dhicin ilaa iyo gumaysigii ilaa siyaad baray. waxaana la yaabaa oo tusaale ahaan mar lagu xukumayay dhalinyaro reer Boorama
wuxuu ku dacweeyey xeer ilaalintii guud xeer ilaalin ku-xigeenkii guud oo uu yidhi dadkani waa dad reer awdal ah argagixisana waxa noogu filan inay magaca reerka yihiin magaca reerka ay yihiin dadka qaarna waxbay qaraabo yihiin inta cad dadkii meesha joogay garsoorayaashii iyo midna ma hadal dhowr qof oo dadkii dhageysanaya loo soo daayay ahaa qaraabaha ayaa kacay oo qayliyey si jees ayuu garsooruhu yidhi u yarkaadi oo doodaada wado waxaanay noqdeen dadka laga soo qaado askarta soo qaadaysa baadhaha loo dirayo garsooraha xukumaya xeer ilaalinta gudida inay hal beel noqdaan taasina muuse cali furo waa tii uu ka cabanayo waqtigii siyaad bare ee uu yidhi kolka hore askari buu ahaa kaalaydii hore markii xigayna kabaryeerigii kiiska maamulay ee keliya uma lahaadeen urur kiis kurgooye ahi anaa gabaykii baana wada hayn laakiin wuxuu kale inay dad isku beel ah isku haybay ay dad xukumayaan oon dad oo cadaaladii aanay jirin nimagana dhammaan tii ayaa socota dadka isaaqa looma ogola in gobollada kale la geeyo oo lagu xukumo haddaba waxaa mas-uul ka ah tacadiyada iyo dulmiga xisbiga kulmiya beesha isaaqna uma dhamma waxayna ku fahmi jireen xisbiga kulmiya markii ay kursiga usoo alamiiteynayeen ay doonayaan inay xukunka qabtaan waxaan nahay xisbigii snm kaas oo ka dagaalamay cadaalad darro waxayse noqdeen ciil qabayaal ka faa'iidaysanaya xukunka gudubna u reebaya beesha isaaq fogeynayana beelaha kale oo marka ay hadlaan beelaha kale yidhaahdeen xulkii saamaqaybsigii baa waxba ay sheegaan waxay soo faqaan xabaalo oo macnaheedu tahay idinkaa dadkan laayay waana laydinka argoosan doonaa waana nooc gumaysiya wixii shaqaale iyo dheef ahna iyagaa isku shubtay waxayna la baxeen jeegaanta ma taqaanaa waxay tahay jeegaantu waa cross dheer waa qalooc dheer oo marka roobka oo aada u da'aya ayay ku dhalatay waana nuxuus mar alla markaasi roobkii istaagaa meesha ay sidaa isku taagtana way qallashaa haddii ay wax nafleeya ku taagana uu bukoodaa waxaas waa nuxuustaasay la baxeen oo yidhahan jeegaan badan haddaba haddaan ku soo dhowaado dulucda kelmaddan waxaan dhammaysanay 10 sano oo xarig dhaaf oo qayra qaanuuna oo ah rabitaanka xukuumadda kulmiye markii aan maxkamadda sare u dacwoonayna wuxuu yidhi guddoomiyaha maxkamadda sare ku yidhi odayaasha iyo garsooreen iyo looyaradii nimankani qayra qaanuun bay ku xidhan yihiin haddaan xukunana waxay helayaan magdho fara badan hase ahaatee dowladdu diyaar uma aha arrinkaasi waxaan doonayaa inaad madaxtooyada tagtaan ood halkaa ka dacwudaan kiiskana maxkamadda sidaasaan kaga saaraya madaxtooyada lafteedu waa tii aan ka dacwoonaynay ee aanu lahayn waxaan inagu samaysay waxaanan ka koobnay waxaana khasab nagu noqotay aniga cabdiraxmaan diyo inaan dhammaysano 20 sano oo ay dowladda kulmiye ku doodaysay inaan xidhnaano hase ahaatee markii ay dhammaadeen 20kii sano oo aan islahayn xorriyaddiina ayaad helaysaan waxaa layna yidhi waxba idiinma hayno ee waad ku jiraysaa salaadiintageedii odayaashiina albaabada ayaa laga xidhay maxkamad iyo cid meel kastaana way la hadli weyday annagana meel lanama geynin imagana waxaa kala badh ah sanadkii 11aad waanu ku jirnaa xarig dhaafka haddaba waxaan fariintan halkan uga dirayaa odayaasha dhallinyarada xuquuqul insaanka madaxda xisbiyada culimada iyo waxgaradka iyo cid kasta oo ay khusayso arrinkan ayaan halkan uga dirayaa kow odayaasha beeshaysa waxaan leeyahay waxaad tihiin salaadiintii cuqaashii beesha dadka waxaan samaynayaana waa dadkii aad ka mas-uulka ahaydeen haddii beele leeyahayna ceebta cidda madaxa loo saarayaan waa idinka haddii laydin yidhi waa dembiilayaal nimankani waxaanu ka go'naa in lanoo saaro guddi ka kooban 5 beelood ee somalilan gafka iyagana tuurta lanoo saaro
oo aanu haddii wax intan maaha inka badan inagu xukumayso waanu ogolahay haddii kalena tacadiga lanaga daayo iyo jirdilka waxaase meesha ka baxay kalsoonidii maxkamadaha Somaliland iyo mustaaqiyadoodii maxaa yeelay lama arag maxkamad wax xukuntay oo madaxweynihii meesha haystay yiri waxba kama jiraan ee waxaan doonaan sameynaya oo ka talaabsaday garsoorka waxaanay wargelintani tahay inaydaan odhan hadhow inamada iyadu maanaan ogeyn waxay sameynayaan laakiin aad hadda gacanta ka qabataan oo dembiga ay faraha kula jiraan haybsooca iyo argoosiga aad ka joojisaan si hadhow haddii kale hadhow waxaa la odhanayaa beesha isaaqoo dhan baa u dhammayd dhallinyaradana waxaan leeyahay waxaad tihiin xooggii ummadda iyo dadka isbedelada sameeya diidana xumaanta iyo dadka dambarsada haddii ay taageeraan xumaan waayo odayadu waa bil dhacday barreena iska tegayaan waxaan u lahaa abwaankii Soomaaliyeed cuqubaba halkii lagu galay caw ka hurudaa carruurtay ka laysaa ninkii caana baasnam dulmigana waxaa ka dhasha waxyaabo fara badan oo ay ka mid yihiin sida abaaraha roob yaraanta cudurrada iyo aafooyinka kale mana rabin inay noqoto jeelka Hargeysa sidii jeel ogaadeen oo kale inuu noqdo waxaan sugaynaa codkiina laba madaxda waxaan falaysa ama gabadh falkan sameynaysa waxaan ognahay inaad carruurta nagu korsataan biilna naga dhigateen guriyana naga dhisateen hadda